horta ugu dambeyn waxaan leeyahay waa ujeedin dawanan only macda YouTube channelkan hadaa fiirsanoosid intana aad soo gaartay subscribe sar and YouTube wax enjoy ugu yahay taqaana like share comment dhammaan enjoy ugu dhig insha Allah waxaa si habsami leh xarunta dhexe ee idaacadda Afgooy uga soconaya tartan aqooneedka bisha barakeysan Ramadaan iyadoo lagu guda jiro wareegiisa labaad waxaana tartanka wareegga labaad ee sideed dhamaadka u soo gudbay sideed xaafadood oo kamid ahaa 14 xaafadood iska soo diiwaan galiyay tartan aqooneedka bisha barakeysan Ramadaan idaacadda Afgooy ay qabato haddaba waxaa tartamay maanta xaafadaha kala ah Asigale iyo sidoo kale xaafadda Xawtaako kuwa oo kamid ahaa xaafadii u soo gudbay sideed dhamaadka tartanka sideed xaafadood ee u soo gudbay tartanka ayaa waxa ay u kala ciyaarayaan laba kulan waxaana maanta la ciyaaray kulankii labaad shalay ayaa waxa ciyaaray xaafadaha Baalguri iyo sidoo kale Embagati iyadoo sidoo kale maantana ay ciyaareen xaafadaha Asigale iyo sidoo kale Xawtaako haddaba tartan xiiso badan ayay soo bandhigeen xaafadihii maanta tartamayay Asigale iyo sidoo kale Xawtaako iyadoo dhammaan dhageystayaasha iyo sidoo kale tartamayaasha aan ka dareemeynay inay ku qanacsan yihiin barnaamijka tartan aqooneedka xaafadaha ayaa waxa weydiinay min 7 su'aalood guud ahaanna waa 14 su'aalood su'aalaha tartanka qaabkay ugu jawaabeen iyo natiijooyinka ay keensadeen intaba waxaa noo sharaxaya guddiga jawaab celinta barnaamijka Maxamed Saciid Xalane bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaa tartamayay xaafadda Xawtaako iyo Asigale Asigale Xawtaako wajigii labaad ee ahaa is-aragiisii labaad su'aasha waxaan ku bilaabnay xaafadda Xawtaako 7 su'aalood oo xaq u lahaayeen aan weydiinay 7 su'aal aan weydiinay mid ay ka jawaabeen ma jirin dhammaan waa ay gafeen waxay ka faa'iideysteen ma jirin oo markaas ay halkan la yimaadeen maanta dhibaca sidaas la ajigeed ee Xawtaako dhamaatay waa eber sidoo kale inta Asigale waxaan weydiinay 7 su'aalood 7 su'aal aan weydiinay waxay ka jawaabeen hal kamid ah waxay markaas ka faa'iideysteen 2 su'aal oo ka soo fakatay xaafadda Asigale aan dhex Xawtaako labadaasi su'aal ee soo fakatay Xawtaako markii la isku daro wadada guud maanta la yimaadeen waa 4 dhibcood markii la isku beeqaamiyo wajigii koobaad is-aragaas oo ahaa bareejo oo 5 ah waxay tirada guud ee noqonaysaa Asigale oo leh 9 dhibcood iyo Xawtaako oo leh 5 dhibcood maanta sidaas la ajigeed waxaa gudubtay xaafadda Asigale waxaa tartanka sidaas u hartay xaafadda Xawtaako بريتو waxaa tartami doona laba tartan ayaa dhici doonta ceelqooda iyo Fayuma ayaa ciyaari doona kulan kalentana wuxuu noqonayaa Doolaabe iyo Tuulada Bulalow kulanka soo horeeyana waa kulanka ceelqooda iyo xaafadda Fayuma gul waxaan u rajaynayaa tartankii maanta ay tartamayeen xaafadaha Xawtaako iyo Asigale guusha waxay raacday labadii kulan ee tartamayaasha xaafadda Asigale bal dareenkooda waxaan ku bilaabeynaa tartamo ka socda Xawtaako magacaaga iyo tartankii maanta dareenkaaga ka waran bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Ibrahim Xasan oo aan tartamay xaafadda Xawtaako horta anigu waan dadaalay alaan dadaaleyno laakiin guusha maanta waxay naga qaadatay walaaleena Asigale marka anigu horta waxaan fanacsanahay inaan soo gaarno wareegan saas awgeed dad badan jirin oo xaafado badan ay soo gaarin marka waxaan leeyahay xaafadda Asigale hambalyo aniguna waxaan soo adkeyn doonaa waa inoo sano dambe insha Allah alxamdulilah suma salaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamed wa calaa aalihi wa asxaabihi wasallam magaca Mukhtaar Suleymaan Boos oo tartamaya xaafadda Asigale la dareenkii ma soo koobi karo laba dhagax diiray isku dhiftan mid un ayaa jabi doona saaxiibadeen way dadaaleen waxaan leeyahay waa inoo isna dambe insha Allah iyo guul ay idin rajaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh